سحلام مودقاجيو ورورا اسمه بوشو بوشو يسودوي قصودوي كحسودوي دلني يركعو كدحمو صدوي يركع دلكم أركيل صدوي يركع تماني نقدرو صدوي يركع صدوي يركع مرة هذا الكائن عم بديو وحمداشة تنقروح بدن سجون نمي إن أنو هذا علنه ماموسنا شرفنا إلهي بكرامة له عن كرامنا لما جودي كشغين يهول وذا ندي ورسياسات ككاه دقمة أيل iyo xafiiska gobolka Nugaal sidoo kale waxaan rabaa inaan iyagana aan ku maamusno dhammaan qaybihii nagala socda xafiiska golaha dhexe oo ay ugu horeeyeen xubin golaha fulinta ka mid ah Cabdiqaadir Abshir Muuse Sanco sidoo kale maxamed axmed dhagaburo inta xafiiska golaha dhexe nagala socotay Aftaax runtii maaha waxaan soo koobi karno mahadcelintii ay sameeyeen sidii quruxda badneed oo u shaqeeyeen dadweynihii iyo dhalinyaradii quruxda badneed oo muddada halka ka shaqeynayay inta ka gadaal ma aha tan wax idinka la idinkaga raadinayo inaa hawsha sii wadaanin laakiin waxa weeye mid mar kasta loo baahan yahay inta in ka badanba in la idin sameeyo oo reerka iyo xafiiska sare oo ka dhamaantood ay jecel yihiin mataqaanaa xubnaha kala duwan ee urur siyaasadeedka ka ee degmada Ayl iyo dhammaan degmooyinka kale ka shaqeynayay in sida ay si ka sharaf badan loo maamuuso loona karaameeyo run ahaantii waxaan sidoo kale aad uga cudurdaaranayaa waxa weeye dad badan baana ka maqan runtii waa jeclay inay halka nagala soo qayb galaan laakiin way kala maqnaayeen qaarna magaalooyin kale jireen qaarna degmada Ayl bay jireen insha Allah waxa inoo dhiman shaqo badan hadii rabiidmo oo aynu rabno inaynu galno waxa la rabaa meeshii shalay shaqadu inoo joogtay meel ka sii ballaaran inaynu wax dhigno waxaan ku kalsoonahay shaqada aynu soo qabanay waxaan ku kalsoonahay taynu qaban doona hadii Ilaahay inoo suurta galiyo Allah idin karaameeyo kulankan ma noqon doono kulankii inoo ku horeeyay kii inoo ku dambeeyay insha Allah kulamo badan baynu qaadan doonaa hadii Rabbiidmo oo kan ka dambeeya haday noqon lahayd deegaankii Ayl ma ku laaban doono iyo haday noqon lahayd Garowe sidoo kale waxaan rabaa si khaas ah inaan ugu mahadceliyo xubnaha ina kala jooga degmada Ayl oo runtii iyo shaqo badan qabtay waas dhigi karno mataqaanaa shaqada ay qabteen aad bay u laba jibaarneyd waxa la idinka rajeynayaa inta iyo in ka badan ba inaad sii qabataan hadii Rabbiidmo aad iyo aad baana u mahadsantihiin waana noo maamuusantihiin oo waan ka warhaynaa hadaan nahay reerka ama xafiis dhaxaan aan ahaan ama xafiis gobol aan ahaane aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii farxad bay noo ii tahay imaatinka iyo kulanka halkan ka dhacaya urur siyaasadeedka ka aad baan uga mahadcelinayaa gudoomiye naxar iyo intii soo qalqaalisay runtii iyo intii tiiba runtii waa wax muhiim ah in la iska warhayo in la is waraysto in la isu yimaado in la is barto waxaan aad ugu faraxsanahay rag badan oo magacooda aan hayay baan halkan saaka ku bartado bari aan qariib ku noqon doonin kuwa badan oo magacayga hayana waa suurtagal rag badan oo aan isnaqaana jasaakumullahu khayran jasaa waa badan yihiin anoo ku hadlaaya gudoomiye ahaan iyo urur ahaan annagu waxaanu ka nimeeshi la oran jiray Ayl gogashan wanaagsan quruxda badan leh baan soo ajiibnay masaafada ay jidhana waad garanaysaan runtii aad baan ugu faraxsanahay iyada iyo mid ka sii fog hadii la yiraahdo dhul ka sii fog baa lagu qabanayaa diyaar baan iyo xubnaha degmada Ayl ka yimi runtii salaam baanu idinka wadnaa ururka ka ee degmada Ayl ururka runtii haddaad tihiin howlwadeennadii iyo madaxdii
degmadii ay iyo shacabkeedii ururka ka ahaa wayna soo salaamayay horta salaanta naga gudoomo insha Allah bidnillahi alkariim farxad waxaan noo ah inaanu hawsha taanu muddo soo socotay runtii waxaan loo rafaadinna haddee laguma barwaaqoobo wax walba oo lagu raaxaystana dee kolba nin iyo labo iyo rag baa soo kacshay innaga ururka ka ah muddaynu hadda soo wadnay wuu jiray wuu qurux badnaa haatanna sidii iyo si ka wanaagsan buu ku socday degmadii ayl iyo meeshaan aynu hadda nimiyo waxaan horta leeyahay ninbaa waxaa laga sheegay aabe buu yidhi maantay saan dagaalkii rag ugu galay ma u jeeda waran wuxuu yidhi waa saas oo kula sii dhowaatid iyo maandho weli ma aynaan gaarin meeshii aynu rabnay waska bilow ururada ina ku bilowwa shaqadan qabanayno ina ku bilowwa arrimo badan oo duruufo badan oo jira laakiin sida hadda taala cabirka aanu ka qaadanay insha Allah bidnillahi alkariim waxaan rajaynaynaa inaynu guuleysano haddaynu ururka ka runtii warbixintaas yarna horta taasay iga tahay anoo odayaasha afkooda ku hadlaaya dhalinyarada damca waa iga damayn doontaa waxaanu diyaar u nahay insha Allah kor u qaadida iyo dhinac istaaga iyo meel walba oo inaga mudan tahay inaanu garab istaagno ururkan ka waxaan kaloo inii sheegayaa ururku socon maayo dardaarankaygan raacsanaya hawlo badan baa inoo taagan inoona waxna weynoo fuleen waxna weynoo taagan haddaynu seexanno oo aynaan waqti bixin oo aynaan jaanis bixin oo aynaan hurdo aynaan ka dheeraan hantida aynu leenahayna aynaan ku fangareen ururka ka waxay ila tahay wuxuu ku damayn karaayo waa dareemka dha qof walba inaga ina ka mid ah runtii ballan haddaynu gallo waxa fiican ballanta in la qaado oo si ay tahay loo xambaaro qof iska yiraahdaa waxaasaan iska gelayaa nah ma jiro markuu galayo qofku hadlayo ballan buu galay ballantana uu fuu cahda inna cahda kaan mas'uul waa la isweydiin doonaa haddaynu ballan gallo isla gallay ururkeena ka ballantu sidii ay ahayd nin walba waa inaad uga soo dhalasho way iga dardaaran waa inaynu waqti hurdo haddaynu badsannana waxaa la ninkii seexdaa siciidii bay dhalay innaga ina ku damaynaysa waynu helin haddaynu waqtigeenna xooggiisa saaro ururka ka siinana faa'iidooyin badan baynu gadaal ka helaynaa kuwaynu ku dhex jirana waa ka helaynaa ilaah waxaynu ka rajaynaynaa ururka ka kor Allah yeelo ilaahay kor ha yeelo muraadkeenu leenahayna ilaahayna ku herga marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Naxar oo runtii maanta qadadan sharafta leh oo quruxda badan inoo sameeyay oo u sameeyay reer ayl sidii fiicneed ay u shaqeeyeen gudoomiyahooda dhalinyaradooda hablahooda xoogayahooda dhalinyaradooda guddigoodii intoodii dhammayd una shaqeeyay si fiican oo runtii la yaab leh aad iyo aad ayaan Naxar ugu mahadcelinayaa qadaduna qada fiican bay ahayd meesha la joogaana waa meel fiican runtii Naxar aad baad u mahadsan tahay garashada dheeriga ah iyo xilkasnimada dabcan hadda waxay la tahay awalba soo jireen bay ahayd oo waxay la tahay dhaqan baad ka soo jeedo waad ku mahadsan tahay inta haddaan ka gudbo dabcan xoogayihiina waynala joogaayo kolley isagaa inoo soo gabagabayn doona oo wixii dardaaran iyo hawl iyo waxa isagaa inoo dhihi doona dhammaanteen ka ah baynu nahay waxaana layna ka rabaa horsocod wixii aynu soo qabannay waxay ahaayeen wax yar waxa inoo dhimanna waa wax weyn wixii weynaa ayaa layna ka rabaa hore inaynu u soconnaa layna ka rabaa haddii rabbi idmo hawlaha ina sugayaana waa hawlo ballaaran dabcan waxay la tahay waxa inaga ina sugayaa inaynu ka shaqayno waa wax weyn waxa weyn baana layna ka sugayaa haddii rabbi idmo madaxweynaheennu oo ururkan guddoomiye u ah waxaa ka go'an in ururadu shaqeeyaan oo barnaamijkii hore aan dib loogu laaban mar haddii dalka ninkii xukumay sidaa ay ka go'an tahay innaguna ururkeennina isagu guddoomiye u yahay innagana waa inayna ka go'naataa inaynu sidaa ku soconno oo ka miro dhalinno
ururkeennana inayn ururada ka hormarino oo meel gaarsiino ayaa laynaga rabaa arrintaa marka waxaa la rabaa inaynu intaa ka sii ballaarino ka sii shaqayno sii habayno waxaan warkayga ku soo gabagabaynaya kaga baxayaa waxaan ku soo dhawaynayaa si kelmadiisa u qaato xildhibaan cabdirasaaq soo dhow xildhibaan mar labaadna waa idin xasuusinayaa marka koowaad dee kolaba bil ku dhowaad shaqaa baa laga soo shaqeeyey gudoomiye naxar aad u mahadsan yahay inuu yiraahdo bal xogaa shaqadii aan ka nasanno bal inuu wada qadayno oo xogaa bal inuu xafladayno inkastoo xilli hore ay tahay shaqada intii bandayd inoo dhiman tahay haddana waa laga maarmaan in magaranaysaa xogaa shaqadii jawgii shaqada inta laga baxo meeshaan quruxda badan magaranaysaa leyrta macaan ee ka dhacayso bal xogaa in lagu nasto shaqada dheereed kadib aad buu ugu mahadsan yahay marka gudoomiyihii inuu sukaayo keenay ragga meeshan joogana rag dhammaan shaqa la soo wada qabtay dhammaantoodu way ku mahadsan yihiin dabcan qof walba in loo mahadnaqaayo waa muhiim in aan isu mahadnaqnaan laftarkaygu waa laga maarmaan maadaama dadku soo shaqeeyey raggu soo wada shaqeeyeen meelo kala duwana laga soo shaqeeyey waxaan is leeyahay weli shaqa badan baa inoo dhiman waxay yidhahdaan hawlka madaara weli waa hogadii raggaan dhan shaqa badan la soo qabtay laakiin shaqa aad u fara badan oo hadda waxaan is leeyahay 27 bisha oo xadda degmooyinkii tijaabada ahaa baa la shaacin doonaa inta tirada codbixiyaal ee jooga axadda la shaacin doonaa maalinkii codbixiyaal la shaaciyana de shaqada inoo hartay waa garanaysaan cod raadin baa inoo hartay oo shaqada ugu dhibka badan inaan cod helno cod raadin badan dadkii ogeydeen sidii loo aruurinayay oo marka hore lagu bariyay inay bal cod yeeshaan xaq yeeshaan hadda inaad codkoodii baridid oo tiraadin ma codkii marakaana la siiyo way ka sii shaqo badan tahan filayaa waqtiguna deen ugu filaan macnaha waqti ka sii yar buu ahaan doonaa kii hore waxaan rajaynayaa in bisha 9 wixii ka horeeya doorashadu sida lagu wada hadda haddaan isbedel ama heshiis kale aysan dib ugu dhicin in xilligaas ku beegmi doonto shaqo hor leh baan la ka rabaa tii hore ka badan warka horta intaasuu ku dhan yahay waxaan mana raggii ugu horreynay sheegeen waan salaamaya waxaan kusoo dhaweynayaa xogaya oo inoo soo gabagabayn doona insha allah darbi raxiim marka ugu horeysa inteena meesha wada fadhida guud ahaan hadday noqon lahayd guddiga fulinta golaha dhexe xubnaha ka yimid heer gobol heer degmo guud ahaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi hadal badan baa la yidhi waa laga hadlay wixii dardaarana iyo hawsha inoo taallo intaba raggii muxuu ahayd tan iga horreeyey oo sida wanaagsan uga hadlay aad bay ugu mahadsan yihiin iyo gabadhiiba guud ahaan aad baa ugu mahadsan tihiin taladiinnii iyo tilmaamihii aad ka bixiseen qaabka shaqada iyo hawshii la soo qabtay marka ugu horreysa intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa oo mahadcelintii odayaashii iga horreeyey mid la mida aan u soo jeedinayaa axmed naxar siciidow muuse oo guddoomiyihii urur siyaasadeedka heer gobolka nugaal iyo xubnihiisa raggii la abaabulay xubnaha kale oo muxuu ahayto hawshaa la galay oo maanta noo suurtageliyey inaynu isugu nimaadno beertan quruxda badan oo ilaahay fadligiis nabadna aan ku haysanno goob barwaaqa ah maxaa ahayto innaguna aynu isku waraysannay inteenna aanan isqoonna isku barannay waa ilaahay fadligiis aad baan ugu mahad celinaynaa jaamac asna berri buu noo ballanqaaday oday jaamac waa oday soomaaliyeed berri buu noo ballanqaaday in laysu yimaado isaguna waa ku mahadsan yahay marka waxaanu rabnaa qadadaas berri odayga jaamac inoo sheegay goor hore in la yimaado waayo casarkii meel shir baa nala ka rabaa inaannu gallo marka in aan xoogaa la daaho looma baahna marka taasna intaasaan odhan laha horey in loo yimaado waqti hore inay ka dhammaato halkan inta salaada door lagu tukado horey markaa loo yaaco 24 bishan waxaan rabaa marka xoogaa ribooda inaan idin siiyo idinku waa howlgasheen anigu ma joogin howlgalkii laakiin nasiib wanaag warbixinta aan hayo iyo sidii xoogayihii guud oo maqan oo warbixinta igu siiyey iyo guddiga fulintaba aniguna aan ahaa ku-xigeenka xoogayaha guud
hawl aad u fiican baa la soo qaabtay runtii oo abaabul wanaagsana oo dadka lagu wacyigeliyey inay sameeyaan isdiiwaan geliyaan oo ay si diiwaan geliyaan inay doortaan inay codkooda meel mariyaan mustaqbalka oo dadku ay doortaan cidda ay rabaan mas'uuliyadda inay ku aaminaan waayo marka nidaamkaasu yahay waxa weeye awoodda waxa iska yeelanaya dadweynaha iska leh awoodda cidda ay wax u dhiibanayaan cidda ay wax u dhiibataan hadda waxay u noqonayaan waa dad shaqaale iyagoo ah adeegayaal dadweyne noqonayaan marka dadku inay isdiiwaan geliyaan oo abaabul galaan oo hawsha ururada ay si fiican uga qayb galaan waa barnaamij siyaasadeed oo aad Puntland ugu baahan tahay intaas kadib waxaa jira ururo badan baa jira marka hawlgal baa lagu jiraa hawlgalkuna waxa weeye waa tartan nin walba meesha wax ku qabto iyo sida wax u abaabulo iyo sida uu u shaqeeyo bay ku xirantahay arrimaha siyaasadda marka lagu jiro siyaasaddu waa hawl badan tahay waxay u baahan tahay dhafar waxay u baahan tahay soo jeed waxay u baahan tahay dadaal badan marka qofku siyaasadda si tartiiba uguma soo baxo laakiin halgan badan baa loo soo galaa baasha waa loo soo hamay dhaxaa waana dhib badan tahay marka dhalinyarada waxaan leeyahay war hogaankii idinkaa noqon doona meesha fil mustaqbal haddana idinkaa hogaanka haya u sii dhowaada si aad hogaan mustaqbalka noogu noqotaan haddii rabbi idmo hadda waxaynu ku jirnaa marxaladdii marka ururada baynu ku jirnaa oo hadda waxaa laga gudbayaa heer urur baa loo tartamayaa saddexdaa degmo markay tartan galaan oo natiijadu soo baxdo degmooyinka kale ee Puntland baa loo gudbayaa sidaasoo kale ayagana laga samaynayaa codbixin diiwaangelin iyo codbixin markaa ka bacdi baa waxaa lagu tartami doonaa haddii rabbi idmo golayaasha deegaanka marka lagu tartamo waxaa la rabaa 9 urur inay ka soo baxaan 3 xisbi oo kaliya inay ka soo baxaan marka waxaan rabnaa annagu ka hadaynu nahay 3 xisbi oo soo baxaya midka ugu horeeya inaan noqono haddii rabbi idmo 3 xisbi oo soo baxaya marka waxaa la rabaa marka aynu u gudbaynaa heer xisbiguna markaas wuxuu yeelanayaa qaabkiisa xisbi qaab siyaasadeed oo xisbinimo buu ku shaqeynayaa hadda maanta hogaanka mas'uuliyiinta dalka hogaamisa ka habay ka tirsan yihiin waxaan rajaynaynaa inaynu inaguna waxqabad la nimaadno mas'uuliyaddeena iyo waxqabadkeena dawladnimo oo hadda aynu haynana aynu ku dabaqno si aynu hadhow u guuleysano guuleysigeena iyo waxa aynu qabanayno waxay ku xiran tahay sida aynu dadaalo waxaynu ku shaqaynaynaa marka xeerka iyo barnaamijka ururku degsaday xeerkuna waa sidii ururku isu maamulo lahaa waajibaadkiisa shaqo gudiyadiisu sida u dhismi lahaayeen golihiisa dhexe shirweynihiisii qaabka dambe isu dooranayo nidaamka shaqo oo marayo marka uu rabo inuu shaqeeyo uu xeerku ka sheekeynayaa xeerkana waad aragteen baan filayaa barnaamijkuna waxa weeye barnaamij siyaasadeed waxaa ku qoran fil mustaqbal waxa ururkani oo dadka u qabanayo gudoomiye naxar iyo tiimkiisa ayl waa soo gudbiyeen wixii talaa ay u muuqday habka nidaamka diiwaangelinta iyo hawlaha inta lagu jiray iyo gudiyadii la shaqeynayay la socday waa soo gudbiyeen waxaanu rabnaa meeshii hawl u baahan in laga qabto meeshii sixid u baahanna in wax laga saxo meeshii la rabo hawl toosa in laga wada qabto aynu u wada jirnaan aan ka wada qabanno marka waxa weeye wixii talooyina waa noo soo gudbiyeen guddiga fulinteena u taalla insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dadaal badan ka samayno waxna ka qabanno haddii rabbi idmo intaasaan muxuu hayto waxaan jeclahay inaan ku soo koobo guud ahaan aad baa u mahadsantihiin shirkuna intaasuu inoo ku soo xirmayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu